أحبابت غيرك جعله وحن عاول جوجنا حركة جماعة الشيخ داود علسو كواس oo ku subcinaya kitaabka ahkaamta ah ee manhajka ardadan ayaa xifdiyay dushana ugu subcinayay ruuxa koowaad juskiisa koowaad ee kitaabka ahkaamta ah ee manhajul dalibiin ee uu alifay Abu Zakariya Yahya bin Sharaf oo loo yaqaan Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ardada oo tiro ahaan gaaray 24 arday ayaa ka koobnaa 15 gabdhood iyo 9 wiil waxaana si aad ah uga muuqday diyaar garow xoogan iyagoona subac u qaadanayay qaab aayadeed calaamaysan la marsuqna fa nabiyina wa hifdal mursalin wa ilma al-awliya wa lana من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان الذي وجد الهادي إلى سبيل الرشاد الواضح للدين ما الأدب بالغدار حمده وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالعلم من أفضل الطاعات وعلماء انفقت فيه نفائس الأوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى بالتحقيقات فحيث أقول بالأزهر والمشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأزهر وإلا فالمشهور وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطريقين وحيث أقول النفس فهو النفس الشافعي رحمه الله ويقول هناك وجه ضعيف أو قول مخرج وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم في قول قديم والجديد خلافه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح يدعو خلافه وحيث أقول في قول خلاف الراجح خلافه ومنها مسائل نفيسة نضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم ما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمد غيره أحفظته من كتب الحديث المعتمدة. gabagabadii subaca ayaa shabakada al-mutahabuna fillahi waxay la hadashay qaar kamid ah ardayda iyagoona u mahad celiyay mashaaqadii ku bixisay dadaalka hagar la'aanta ah una suura gelisay kamar dhalinta hadafkooda magacaygu waa Cusmaan Xidig Macalin Bashiir waxaan kamid ahay ardayda ka soo bixisay kitaabka manhajka marka hore waxaa mahad leh Allah subhanahu wa ta'ala marka xigtana mashaaqadii nagu xifisay kitaabka manhajka magacayga waa Said Ahmed Macalin Cabdullah Ahmed caawa waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaa subax manhajka runtii dareenkayga lama soo goobi karo dhammaan waa maasayeen mashaaqadii nagu soo dadaashay bismillaah waxaan caawa ku subcinay jiska koowaad ee kitaabka manhajka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan qaybaha kale ee kutubka dhameysano ardadan ayaa la rajaynayaa in ay xifdiyaan dhammaan saddexda ruwac ee kitaabka uga harsan wuxuuna kitaabkani manhajka kamid yahay kitaabada sida gaarka ah جماعة الشيخ داود علسو وواجب شيء أرضي حفظين تودا عبد المجيد حسين حرسي شبكة المتحابون في الله مقالة مقدشو